Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabada daawadyaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono xaaladda isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo waliba sida uu shacabka ugu adeego. Haddaba waxaan saaka bartaasi kula kulanay maareeyaha isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo nooga warbixiyay isbitaalka intuu aasaasan yahay iyo waliba adeega uu bixiyo iyo waliba adeega sida uu siiyo shacabka iyo sida uga haqabtiraan. isbitaalka Dhagaxbuur waxaa la aasaasay sanadka 1983 xilligaas oo ku shaqeynayay ama adeeg uu ku bixinayay xarun caafimaad ama health center. wuxuu markaa ku shaqeeyay muddo 10 sano xarun caafimaad ahaan ama health center ahaan buu ku shaqeynayay. 93 ayaa loo dalaacsiiyay isbitaalka darajada koowaad ama primary hospitalka la yiraahdo, taasoo muddo 20 iyo dhowr sano uu adeega ku bixinayay. sanadka hadda u dambeysayna waxaa loo dalaacsiiyay general hospital ama darajada labaad, iyadoo loo qabtay loogu daray dhisme ballaarin ah maadaama marka darajada labaad la leeyahay adeegyo badan oo darajada koowaad isbitaalka uusan bixinaynin in bixiyo la rabo, si markaa loogu helo meeshii adeegaas lagu fulin lahaa. waxaa loo qabtay dhismo ballaarin ah kaasoo hadda bilowday. guud ahaan markaa xilli aasaasitaankiisa iyo taariikhdiisa markaan ku noqono intaa weeyaan. adeeg ahaana waxa uu siiyaa bulshada gobolka Jarar, maamulka magaalada Dhagaxbuur, laba degmo oo gobolka Nogab ah oo Garba iyo Sagag, iyo hal degmo oo gobolka Qorraxay ah Sheegoosh iyo gobolkii Jarar. intaasaa markaa ku xidhan oo bukaanadii yani meelaha ugu badan ay ka yimaadaan waa 14 degmo oo 3 gobol ku kala jira, iyo maamulkii magaalada oo ku dhex yaalo oo ah xaruntii ku yaalay isbitaalka. xagga cududa shaqaalaha markaan iyada u nimaadnana waxaa jooga hadda 6 dhakhaatiirta takhasuska ah oo ay ka mid yihiin dhakhtarka qalliinka guud, dhakhtarka lafaha, kii haweenka, kii caruurta, kii xanuunada uurku jirta ama internista loo yaqaan, iyo kii radiologista raajatada iyo computer saaritaanka iyo akhrintoodaba takhasuskiisa uu ahaa. 16 dhakhtar guud oo general practitioner-ka ama dhakhaatiirta guud ah, 5 xubnood oo fieldiga loo yaqaano health officer, 20 pharmacy ah oo isugu jira degree iyo diploma, 18 laboratory ah ama shaybaadhka isugu jira iyaguna degree iyo diploma, 135 nurses ah oo isugu jira degree iyo diploma oo noocyadii kala duwanaa nursing ah, hadday tahay midwifery, hadday tahay clinicalkii, hadday tahay BSc oo midwifery iyo nursing-ba kala gelaya. iyo hal dhakhtar oo dhakhtarka ilkaha ah oo dentist ah, iyo hal qof oo radiology radiographer ah yani sawirka saarayay. intaas waa cududa shaqaalaha ee ugu muhiimsan. haddana waxaa kusoo biirtay 2 xubnood oo optometric kuwa la yidhaahdo oo indhaha ah, walow aysan ahayn ophthalmologist qabanaya waxyaalihii u badnaa dhakhaatiirtu ay qabanayeen, laakiin daaweyntii iyo waxyaalaha yaryar ee cataractiga yaryar oo kale ah ay daaweyntooda qabanayaan iyo waxyaalo yar oo qalliinkooda iyo wixii emergency ah. 2 xubnoodba hadda iyaga oo qaybta indhaha ah baa iyaguna jira, iyo 2 xubnood oo psychiatric ah ama qaybtan dhimirka yani daaweynaya. intaas waa si guudyadan ah xuduudda shaqaalaha ee ku sugan. intaasoo ay garab socdaan shaqaalihii kale ee supportive staff-ka la odhanayay, nadiifsooyinka lahaa, washmaan lahaa, qaybtii kale ee maamulka iyaguna lahaa. adeegyo badan oo markaa waxaa jira hadda muddooyinka u dambeysay dadaal aan gelinay oo
waxyaalihii soo kordhay ka mid ah oo ay ugu horeeyaan adeegyadan ay fulinayaan dhakhaatiirtan seniorka ama takhasuska oo uu ka yahay dhakhtarkan lafaha. horaan uma jirin dhakhtar lafa oo joogi jiray, wayna yar tahay deegaankeena jijigoon baa laga heli jiray dhakhtar lafaha oo ka shaqeynaya isbitaalada. marka waxaan ku guuleysanay inaan helo. caqabaduse waxa ay naga saaran tahay oo weli ay naga haysataa qalabkiisii, walow aan helnay oo aan soo iibsanay anagu isbitaal ahaan waxyaalihii basic ahaa ee ku shaqeyn lahaa ee seeska uu ahaa, laakiin wax badan oo weli naga dhiman oo aan ka sugayno xafiiska caafimaadka iyo ciddii kale ee ka qayb qaadanaysaba adeega isbitaalka sidii kor loogu qaadi lahaa inay taa kula ka bixiso. waxaa kale oo iyadana aan ku guuleysanay oo adeegyada inihii sanadadii u dambeysay hadda soo kordhay ahaa dhakhtarkan qaliinka guud. horaan waxaa jiri jiray emergency surgery ama IOS tiimka loo yaqaano oo sameyn jiray qaliinada CS-ka ama haweenka iyo qaliinada degdega ah haddii qofkii nabar gaadh degdeg ah iyo qabsin iyo waxyaalaha emergency-ga xaaladda emergency-ga kaliya qalin jiray. laakiin waxaa markii dambe noo suurtooday dadaal badan aan gelinay oo ilaahayna noo fududeeyey in dhakhtarkii emergency-ga iyo elective-ka labadaba sameyn lahaa in aan helo oo adeegiisii uu fulinayo. aniguna aan ka mid ahay dadka ka faa'iidaystayba dhakhaatiirta qaliinka ah. waxaa kaloo iyadana ka mid ah dhakhtarkan haweenka. awal hore CS-ka ama qaliinkan hooyada uureyda ah xaaladdu marka ay keento qaliin noqota unbaa la sameyn jiray, laakiin hadda xanuunadii gynecology-ga ahaa ka baxsanaa xilliga ay hooyadu xaamilada tahay ama uurka tahay cilada ku timaada, dhakhtarkii iyadana adeegga siin lahaa waa iyadana ka mid ah waxyaalaha hadda loo suuroobay. sidoo kale dhakhtarkan internista ama waxyaalahan uurku jirta la yidhahdo waxaan jiray dhakhtarkan ka shaqeyn jiray. wuxuu ahaa dadkii fursadda ku helay sponsor garaynayay xafiiska caafimaadku isagoo magaca isbitaalka ku tagay, kadib markuu dhameeyeyna uu kusoo noqday goobtiisii shaqo, adeegiina uu u bilaabay, bukaano badanna uu halkan ku maareeyo. keliyana waxyaalaha ugu badan la gudbiya ay tahay wix halkan aan lagu haynin, hadday tahay scan qof u baahan, hadday tahay qof ICU u baahan, inaha ugu badan laakiin uu halkan uu ku qabto. dhanka qalabka waxyaalaha ugu badan caqabadu weli ay naga haystaan bay iyadana ka mid tahay, laakiin aan odhan karo isbeddel kobac ah ayaan ka sameynay. oo waxaa kow ka ah raajistada oo kale waxaa jiri jiray noocii manualka ba awal hore oo li jiray, laakiin hadda nooca digitalka ayaa yaala. nooca hore marka caqabad buu lahaa oo haddii filimka la waayo waxaa dhacaysay in adeegii uu joojiyo, laakiin noocan digitalka ah film haddii la hayo iyo haddii aan lahaynba adeegii wuu soconaya. oo haddii aan filimka lahaynin dhakhtarka marka computerkiisa lagu xidhiidhinaya, halkaasa loogu soo diri, halkaasu marka dhakhtarkii uu ka akhriyaya. kaas yani inaan helo waan fursad u helay oo eega hadda yaala. waxyaalaha kale xaggan shaybaarka mashiinkan lagu baaro dhiigga guud baa ka mid ah kuwa aan helay. waxaa kaloo iyadana ka mid ah mashiinka lagu baaro xubnaha jirka ama organ function testiga la yidhahdo, keliyaha, beerka, shaqadooda lagu baaro. kaas oo aan halkan uga mahad celinayo bulshada oo ka qayb qaadatay iibkiisa ama keenitaankiisa, iyaga oo qiimaha lacagta yani lasoo siinayeen half ama badh bulshadu lahayd, badhka kalena anagu isbitaal ahaan aan ku darsanay, kadibna saas kusoo qaadnay adeegiina bulshadii si fiican oo hufan u siiya. waxaa kaloo jira mashiin hadda isna aan keenay oo weli shaqada aan bilaabin oo lagu ogaado xinjirowga qofka. waxaa jira xanuunada markaa qofka ku dhacayo oo qofka xinjirowga in uu yar yahay iyo inuu hooseeyo iyo inuu normal yahay
kii lagu ogaan lahaa oo coagulation profile analyzer la yidhaahdo kaas oo hadda isna aan soo iibsanay dhawaana aan rabno in shaqada uu bilaabo kaliya waxa u dhiman waa installationkana by this week baan rajaynaynaa inaan ku guuleysano rakibaadiisa waxaa kaloo isna jira weliba uusan shaqada bilaabin machine organ function testiga iyo electrolyte-ka labadaba ka shaqeynaya oo program ahaan loogu yimid waxyaalihii donationka lagu bixinayay ah kaas oo haddii shaqada bilaabo wax badan bulshada ka qabtay doona haddii la yiraahdo adeegga hospitaalkana kor u qaadi doona kaasna isaga hadda installationkiisa waa la dhameeyay kaliya waxaa la sugayaa waan sugaynaa wax weeyaan waa reagentigii uu ku shaqeyn lahaa dhankan kale waxaa iyadan intaa barbar socda adeeggii kale bukaan socodka ahaa oo dhammaan qalabyada aan ka sheekaynayno waxa ay adeegga siinayaan waa bukaanadii oo ah bukaan socodkii bukaan jiifkii labadaba u qaybsamaya iyo wixii emergency-ga ahaaba haddii ay shil tahay iyo haddii xanuun kusoo booda ah ay tahayba qiyaas ahaana averagely marka la isku celceliyo tiro bishii ilaa 4,000 ku dhawaanaysa mararka qaarkoodna dhaaftaa laakiin averagely marka celcelis ahaan 4,000 noqonaysa oo bukaan socda waa bishiiba lagu daweeyaa hospitaalka halka hooyada ku dhalaysa hospitaalka marka la eegana celcelis ahaan ay 200 oo hooyo ay ku dhalaan halkan xagga qalinkana celcelis ahaan marka la eego averagely 100 konton 160 170 meelaha ay iyadana noqonaysaa bukaanada qalinada elective-ka loo yaqaano marka laga reebo wixii emergency-ga ah ama xaalad degdeg ah qalinadu ay u galayaan kan bukaanada elective-ka ah aan ahayn wixii xaalad degdeg ah ay keentay tiradoodana iyadana intaas bishii ay noqotaa marka si guud adeegga oo kooban iyo waxyaalaha ka jira anagu hospital Dhagaxbuur ahaan ma nihin oo xarumihii laga dhigay treatment center-ka ama goobihii daweynta sida Karamardho oo kale oo adeeggii joojisay laakiin adeeggii waan bixinaynay caqabadaas badan ayuu keensaday oo ay ka mid tahay kow in bukaanadii laftoodii dad laga shakiyo xanuunka inay qabaan la keeno ay markaa noqoto in goob dheeri ah oo meeshii ka baxsan isolation center ahaan oo kale la diyaariyo caqabada markaa inta halkaa aan la gaarsiinin ee u horeysay qofkii la jiifiyay in bukaanadii kale ay saameyn iyadana ay ku keensato ta kale bulshadu marka adeegga ay soo doonanayso waxaa jiray waxyaalo ka hortag ahaan loo isticmaalayay oo ay ka mid tahay in la xidho maskigii marka loo soo jeediyay la yiraahdo maskigii xidha caqabada ugu badan bay iyaduna ay ahayd oo dadkii inay dhibsadaan hataa xadidaadda la xadiday albaabka in aan la soo dhaafin baan gaarsiinay oo qof aan xidhnay laakiin marka qaarkood waxaa lala kulmayay albaabkii marka lagu soo dhaafo qofkiiba inuu jeebka iska gashado oo iska duuduubo markii uu isha dadka yacni xirfadlayaasha caafimaadka arkana uu hore markaa uu xidho caqabadaha ugu badan marka saasay ka mid ahayd iyo tiradii bukaanka oo yaraatay maadaama uu isu socodkii badankiisii uu yaraaday laakiin xagga kale adeegga wax caqabada oo anaga naga keenay hospitaal ahaan ma jirin waana isbarbar wadnay in yacni bukaanada xaaladda la soo darsto COVID-19-ka ama caabuqan coronavirus-ku inaan baaritaankoodiina halkan ugu samayno ciddii la helana aan u gudbin jirnay markaa xarunta treatment center-ka ee Karamardho maadaama aanan anagu ahayn xaruntii lagu baadhayay lagu daweynayay corona ama COVID-19-ka adeeggan indhaha kolley waa mashruuc ay fangareynayeen qolo Turki ah kuwaas oo
sponsorka lahaa fududeynteedana uu lahaa xafiiska caafimaadku fuliyaashuna ay ahaayeen dhakhaatiirteennii joogtay deegaanka ugu horeeyo Dr. Cabdicasiis Ibraahim oo runtii aan mahad ballaaran u jeedinayno tira ahaan waxaa la qorsheeyey inay ka faa'iidaysato oo ka faa'iidaystay adeega qalliinka hadda socday isbuuciina dhaafay 400 oo qof in loogu sameeyo qalliinka markaa tirada 400 waxaa barbar socday daaweyntii oo iyadu aan tira cayiman aan lahayn oo ciddii yani fursadda waqtigu u saacidayba timaadaba ka faa'iidaysanaysa waxaa intaa dheeraa iyaguna dadka aragga indhaha in la cabirayay oo la siinayay lafteedana muraayadihii ka caawin lahaa aragga haddii aragti dhowda ay cilad ka jirto haddii aragtida fog cilad ka jirto waana adeeg aan joogto ahayno laakiin mararka qaarkood kolba goob laga fuliyo sanadkii 2011 mar baa sidoo kale loogu fuliyo isbitaalka Dhagaxbuur hadda sanadkan 2013 oo markii labaad laga fuliyo anaguna hadda waxaa nagu soo biiraysan markii hore ka dhawaajinay 2 xubnood oo qaybta indhaha waxaan markaa rabnaa labadaas iyo Dr. Cabdicasiis anagoo kaashanayna in adeega qalliinka laftiisa oo campaign-ka uu ka baxsan mid ka baxsan oo joogto ah in aan ka bilowno isbitaalkii saasna aan ku sii wadno haddii Allah uu daliilay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan ayaa baaq ugu diray xafiiska caafimaadka iyo dawladda deegaanka Soomaalida inay ka caawiyaan agabka ka dhiman isbitaalka baaqa laba u kala qaaday mid aan u dirayo xafiiska caafimaadka iyo cid walba oo ka qayb qaadanaysa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada adeeg bixinta isbitaalka anoo ugu horeysiinaya xafiiska caafimaadka maadaama uu yahay xafiiskii yani aan hoos tagaynay kobac badan inuu siiyana xafiiska ay tahay waajibaadkiisa isbitaalada deegaankaba in la soo qalabeeyo isbitaalkii oo wixii qalab ah ee muhiim ah ka dhiman iyada oo la sameynayo sida ay u kala daran yihiin ama loogu kala baahi badan iyadoo la raacayo in dhammaan wixii qalab ahaa ee looga baahnaa isbitaalka in naloo keeno waxyaalaha very sensitive ka ah ee weliba aan aad u sii codsanayno mar walbana aan codsanana waxaa ka mid ah mechanical ventilator-ka mashiinka la yidhaahdo ee ICU loo isticmaalo kaasoo hadda ay caqabad naga haysato waxaa jira hadda team aan u dirnay referalka oo muddo 2 isbuuc kusoo qaadanayay sidii looga shaqeyn lahaa waaxda ICU maadaama hadda aan qorsheynay inaan furno mashiino aan helay baa jiray waa dhaweyd oo ventilator ah laakiin kuwa yar oo isbuuc ka badan aan shaqeynaynin bay noqdeen wixii markaa ka yar da'doodu 15 mid weyn waan u haynaa oo 2 isbuuc iyo ka badan bay ku jiri karaan laakiin kii dadka waaweyn ayaa naga dhiman waliba hadda anagu dadaal aan ku jirno oo anagu isbitaal ahaan anagu marka waxa kale ee codsan lahayn waa qalabyada kale mashiinada lagu shaqeynayo haday tahay in wixii hal xab laga haystana la soo kordhiyo laba laga dhigo wixii aan la haysanin la keeno la soo wada qalabeeyo ta kale caqabadaha kale ee aan xafiiska inuu naga caawiyadana aan codsan lahayn oo xagga dawada waxaa jirta xarun baa jirta dawladdu ay leedahay federal level laga maamulo laakiin xarumo kale deegaankeena oo jijiga iyo qabdaalba kale taasoo ibsa loo yaqaano oo meesha dawada isbitaalada ay ka soo gataan sharciguna uu ogolyahay walow marka xagga aad ka weydo aad option kala haysato waxa dhacaysa hadda sanadada u dambeysay in dawada yani sida aad u baahan tahay aadan u helin oo saaligaadii 50 dawo ama 100 dawo aad waxayso haday u yartahay 30 40 waad waayaysaa taas marka waxay saameyn ku yeelanaysaa miisaaniyadii aad u haysatay dawada waayo cost ahaan way ka jaban tahay xarunta dawladda ay leedahay haddii tanad ka weydo waxaa lagu geliya marka inaad ka soo iibsato meelihii kale ee suuqa xarumihii wholesalerada way ka qaalisan tahay marka waxa dhacaysa miisaaniyadii kugu filan lahayd sanadka in sanadka ay kuga gaarsiin weydo sababtoo ah meeshii qiimaha jabnayd ee dawladdu ugu tala gashay in laga iibsado waxaa yani ka dhacay oo ka jira dawadii in ciriiri ay gashay marka taas in bal dadaal
la geliyo oo sidii dawadaas si joogto ah looga helaa waayo waxa hadda imanaysa oo saameynta kale ay ku yeelanaysaa bulshadii oo bulshadii marka ay timaado hospitaalkii waxa dhacaysa in dawooyinka qaarkood la waayo maadaama xagga xaruntii laga soo qaadi lahaa laga waayay si kalena bulshadii way u saameynaysaa oo dawada halkan hospitaalka dhexdeeda taala 100% way ka tayo fiican tahay wayna ka qiimo yar tahay oo aad uga qiimo jaban tahay qarashkan kale suuqa ay kaga soo gadanayaan qodobka kale xafiiska idan u dirayna waxweyn in xirfadlayaasha cidhiidhiga ku jira sida laboratoryga shaybaarka oo kale pharmacy oo kale waliba qaybta degree programka bal in sidii loo abuuri lahaa iyo qaybtan radiographerka sidii loo abuuri lahaa iyadana in bal xafiiska la qaato qorshe ahaan oo isbitaaladii loo fududeeyo baaqi kale bulshada aan u diray isaguna waxa weeyaan si guud in adeegan looga faa'iideysto hal shayna bulshadii ay aaminto oo aan isla wada fahno oo ah in mas'uuliyad ay naga wada saaran tahay xarunteena hospitaalka ee caafimaadka mas'uuliyadda ay naga wada saaran oo ah in adeega aan haysanana aan ilaashano kana faa'iideysano inta aynaan haysanina si wada jir ah aan u raadsano u keensano marka aan helana iyadana si la ilaashimaheedii iyo ka faa'iideysigeedina aan si joogtayno laakiin aynaan u arag meel ka baxsan danteena oo yani meel lagu halayo oo kaliya aan la odhan waa meel dawladdu ah sponsor garayso laakiin waa la wada leeyahay oo bulshadii baa ka faa'iideysanaysa marka in iyadana bulshadii aan taas aaminto oo lahaansho aan muujino marka wixii aan kaga qayb qaadan karnana aan kaga qayb qaadano sidii awal horeba looga qayb qaadanayay dadka ugu badan ee waliba ka qayb qaadanayay hadda balaaran aan u jeedinayna ay yihiin qurbo joogta iyo qalabyo badan la soo gaarsiiyay sanadadii hore ee soo dhaafay taasaan ku soo kordhinay dhankooda kale iyagana waxaan goobtaasi kula kulanay qaar ka mid ah bukaan jiifkii iyo waliba bukaan socodkii adeega caafimaadka usoo doonanayay walow qaarkood ay ka yimaadaan degmooyinka ka tirsan gobolka Jarar iyo gobolada kala duwan ee deegaanka Soomaalida maxaa si fiican baa lagu shaqeeyay ilaa xalay lagama seexanin si aad iyo aad u fiican baa lagu shaqeeyay haddana waka kombiyuutarka sariirtii aan jiifay baa lagu keenay dhalinyaro fiican oo firfircoon baa noo shaqeynaysay xalay bayna naga seexanin aad iyo aad baa ay mataqaanaa dadka ugu dadaalayaan sidii ay ilaahay baa caafimaad hayeen sidii dadku caafimaad u heli lahaa si aad iyo aad u heer sarreysa ayay ugu dadaalayaan wayna ku mahadsan yihiin dee waa wiilashada yaraa wax soo bartay sidii aan ka dhowranay bay noogu shaqeeyaan waa cudurho weli saasoo laygu sheegay ma jirto dhiikar aan lahaa uun mooye wax hadda cudurho kale oo laygu sheegay ma jiraan adoo hadda baaritaanku hadduu ii socdaa weli dhexdaan kaga jiraa marka insha allah khayr baan rajaynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa Saafi Cabdullaahi Ismaaciil waxaan ka tirsanahay degmada Awaare waxaan gaar ahaan waxaa laga keenay meesha la wada abaareed waxaan ku dhahay xaaladayga waqtiga aan imiday aad baan u xanuunsanayay kaadida ay qabatay kadib anoo bararsan oo sakaraad halkan la dhigay waa tuunba la geliyay alxamdulillaah aad baan u caafimaadsanay waan bogsaday xaaladayga aad bay u sareeyaan hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad dhakhaatiirtu si fiican bay ila macaamileen ilaahayna wuu la qabtay alxamdulillaah walaa dhakhaatiir fiican iyo meel fiican baan imiday dhakhaatiir aad u sareysa alxamdulillaah aad baan u fiicanay gawaan bogsaday xaaladayda aad bay u wacan tahay isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa ah isbitaalada ugu waaweyn ee deegaanka Soomaalida dhankooda kale iyagana waxaan goobtaasi kula kulanay goobaha kala duwan ay ka howlgalaan dhakhaatiirta isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo waliba sida shacabka u siiyaan adeeg bixinta ayaa qaarkood nooga warbixiyeen magacaydu waa Cabdifaac Maxamed waxaan ahay shaqaale isbitaalka Dhagaxbuur General Hospital waxaan ka shaqeeyaa waxaan ahay case team leader ama nursing coordinator ka inpatient wardiyada intii waaxyaha inpatient ward oo kale waxay bixiyaan adeeg caafimaad oo dadka bukaan jiifka la soo sixiya ay siiyaan adeegaas oo kala qaybsamo sida waaxda caruurta oo kale oo caruurta ciyaalka oo wixii under 5 oo kale ay lagu daaweeyo
iyagoo oo kaysaskoodu ay u badan yihiin shubanka iyo oof-wareenka iyo minaha wixii nafaqa darada oo kale. waax kale oo iyaduna surgical wardka oo wardka dadka qalliinka la dhigo kaysaska dadka injuriga ama wixii dhaawaca ama dadka qalitaanka lagu sameeyo ama dadka qalitaanka sugay oo kale operationada lagu sameeyo waaxda dadka la dhigo iyaguna weeyaan oo iyadana kuwaas oo adeeg caafimaad iyagoo waa la siiyo hufan iyagoo kaysaskooda ay u kala baxaan wixii surgical case ah oo lagu admit garayo wardka bukaan jiifka ee surgical wardka. waaxdan eega aan joogno waxa weeye iyaduna waa waaxda medical wardka ah oo wixii medical case xanuunada dadka waaweyn ee adultiga ah sida chronic caseska oo kale bukaanada xanuunada chroniga ah xanuunada aan kula tacaalo medical caseka medical wardka kale inpatient medical wardka aan kula tacaalo waxaa ka mid ah ugu badan xanuunka hypertensionka ama dhiig karka diabetiga ama xanuunka sonkorowga ah asthmatica oo wixii naqas ku dhago kale ama xiiqda oo kale u taqaanaan kaysaska kale iyadana nooga badan waxaa weeyaan aneemiga dhiig la-aanta dadka dhiig la-aanta kusoo dhacda ama dhiig ka yaraado oo iyaguna xagga loogu sameeyo blood transfusion dhiig loogu shubo. sida xanuunka kale iyaguna waxaa jira kaysaska ugu badan ka yimaadana sida dyspepsia ama xanuunka kale la yiraahdo adu wixii medical case aan ahayn surgical case waararkan adultiga lagu qaabilaa at least toddobaadkii oo kale waxa uu yimaada ama adeeg caafimaad oo admission soo gaara ilaa ala 20 patient admission weekly waa iman karaan waa yimaadaan ku daweynaa. marka adeeg saas u fan shaqaalaha iyo wixii waa si fiican ba bukaanka u shaqeeyaan uga hawlgalaan hadday tahayna bukaanka ay adeeg caafimaad oo hufan siiyaan sida inay ilmaha filtasaanka ka qaadaan daawada dhaqtarka oo dharkii ay sameeyaan. marka arooti oo kale dhaqtarku markuu la soo galo shaqaalo soo galaan shaqaalo ilaa 3 shifti oo kala shaqeeyaan oo shifti A iyo shifti B iyo shifti C oo kala shaqeeyaan shaqaalo kala shaqeeyaan. shiftiga arooti oo kale dhaqtarku markuu joogo available ala ward kasta waxa ku qoran dhaqtarkii iyo seniorkii oo ka shaqeynaya jooga hadday tahay waaxda surgical ward kale orthopedic oo dhaqtarkii lafaha ku takhasusay iyo GP-gii iyo nursiga oo manaha iyaguna 24 hours jooga isbedelaya. dhaqtarka kale iyaguna seniorka surgeonka oo jooga oo adeeg caafimaad siinaya medical wardka oo kale dhaqtarkii oo GP-ga oo 24 hours ku qoran shaqaale nursiga oo shifti ku soo galay iyo dhaqtarkii seniorka internistiga ama dhaqtarkii cudurada ku jirta ku takhasus kala jooga. arooti kale marka shaqaaluhu soo galaan intuu dhaqtarku roondiga bilaabin waxa la sameeyo wax yiraahdo filters baa la sameeyaa ina bukaanka nurse ay filters ka qaadaan kadibna uu dhaqtarkii uu roondiga la sameeyo iyaga oo case ku sameynaya team roondiga ay sameynaya medical roondiga sameynaya waa arooti ala bukaan dhaqtarku uu warbixin u taagan yahay isagoo marka kolba wixii qaarka dawadii hore u soconaysa oo socoto bari kuwa kale ee minaha uu ka bedelayana uu order cusub u dareen iyadana halkaas uu ka orderka u qorayaan. markaas markasta 24 saac waararku iyagu waa available shaqadooda iyo adeega caafimaad bukaanka sina bukaan jiifka iyo maxay hayday sidoo kale markasta oo ay shaqaaluhu shaqada shifta soo kala galaan B shifti oo niska dambe soo gasha iyo dhaqtarka markasta isaguna jooga oo hadduna seniorka oo koola markaas adeega caafimaad Dhagaxbuur Hospital bukaanka iyo shacabka deegaanka u haya. magacayga waxaan waxa la yiraahdaa Mustafa Cabdi Iimaan waxaan ka shaqeeyaa hospitalka guud ee Dhagaxbuur. hadda waaxdan aan ku suganahay waxa weeyaan waaxda X-rayga ama waaxda raajitada weeyaan. bukaanka si fiican baan ugu shaqeynaa sidii loogu talagalay ayaan u shaqeynaa. salaad gelinka hore waan shaqeynaa gelinka dambe waan shaqeynaa habeenkiina waan shaqeynaa 24 saac waan shaqeynaa. hadda waqtigan xaadirkan shaqada ayaan ku jirnaa. adigu taa waxa ku xirada bukaanka ay ku xiran tahay kolba bukaanka soo yimaado ma lagu shaqeynaa
laakiin bukaan badan baa noo shaqeeya tusaalaan maalmaha isniinta salaasada arbacada iyo khamiista bukaanada nagu badan yihiin afar laatan saac waa la helaa tusaalaan maxaa yeelay lambarkayga waxaan ku dhejinay muxuu albaabka horteeda xilliyada qada laftigeeda haddii la baado waa laysoo waco waan imaadaa maalmaha kalena caadi baan u shaqeeyaa axda hadda keligii baa jooga waxa departmentiga أنا مسؤول كان دبرتمنت هرباناي كليجي بتشوف أنا لو كليجي شوكا بكان قف كستوي ما دوح حسكو ضينا قنعيو ونحيا ذي يعني قفنا معلي قف هربنا ونشقيا يعني هذي قفنا واسيا يعني دتك لكن بكان هذا واحد كلته لنا يعني دتك محيا ذي يعني إنه كحنا هذا السبتال هذا إنه كحنا هذا وهاي برا فردنا سؤالن قار كلولي واحد كتشبان سبتال كدولتي مركا دتك خاصة كلته لنا نوستالو دولت كسر حنادان هذا واكنين نفسي حاويان ماشى سفي عن سي أذيك بالمشي سفي عن بالله وقفتا سوى نكسم ونوقفنا مركا شعبك والله سوى نكسم ونولا معاملنا دين كستو إسكتيران عقودين دتكو أنا إسكو مدعين ده كلا دبعتين هذانا كل بس دبعات الروح نودكنا ونولا تقنا مالكي والله إلا إن جارسا أبو بقر روح ما نسكده نسكوارا كنت لا نسكده منا أبو مالكي بقولوا جارسا ملا بقر ugu dambeyntii waxaan isaguna wareysi la yeelanay agaasinka isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur Faysal Jaamac Daahir oo nooga warbixiyay isbitaalka Dhagaxbuur wuxuu ka mid yahay isbitaalada muddada dheer adeegga soo siiyay bulshada marxalado kala duwan oo soo maray imika waa darajada General Hospital waxaanu leeyahay dhammaan waxyihii takhasusaadkii looga baahnaa buu leeyahay oo hadda aan furnay tii ugu dambeysay oo ah waaxda indhaha hore waxa u furnaa oo aan u shaqeynay waaxaha qalliinka iyo dhammaan waxyaha kala duwan ee maaragtay loogu talagalay departmentka kala duwan ilkaha sidoo kale waaxda maaragtay lafaha iyo muruqyada dhammaantii markaa wuxuu leeyahay takhasusaadkii looga baahnaa isbitaalka waxyihii looga baahnaa way ku dhammaystiran yihiin isbitaalka adeegga uu bixiya waa adeeg 24 saacba ah sida maaragtay standard isbitaal ahaan waxaan u shaqeeyaa deegaan aad u ballaaran zonal maaragtay oo saddex isugu jirta inta ugu badan laakiin waa jarar iyo intii kale maaragtay soo gaari kartaba bulshadana inteena u badan deegaanka waa bulsho u badan reer guuraa oo kolba maaragtay xaggii ama daaqsimi jirto ama baad ama biyale ay tagaan marka culaysku uu ka bataa inta loogu talagalay marka qaar inuu adeego marka si guud isbitaalku saas u bixiya adeegga corona xaaladda corona kulli ayaduna caqabad guud ah inta badan aan kaga hadalno warbixin kasta aan bixinayno ayadoo khataraydana maaragtay haddana mar labaad soo cusboonaatay horena u jirtay marka in aad ayada bulshada looga taxadiro ayaan farayaa qaybaha warbaahintana markasta maaragtay wacyigelinta in lagaga hadlo kolley intaasi waa waxaan oran karaa waxa weeyaan sida guud ama maabka guud iyo adeeggu siduu yahay كل وحي سؤال قبطاني دايركتي أنا ود يويدين كرتان لبضي سنة قدام بي وحيها سو كردي الماركتي واحدة يعني قلين كسيدة هراء وواحد عن هذا سيرشيو ناتشوغا وتخصص له واحدة هوينك يعدل المضى وما MCH كا أيضا حجرة بخاطر تخصص عجاني عن أوبس تخصص كسيله برياتريكا مع وارك عروضة وحجرة ذن بخاطر تخصص له وبخاطر عروضة intaas waxa si dheer ilkaha indhaha oo sidaan sheegnay aan dhawaan furnay lafaha psychiatry waxyaabahan oran karo maaragtay waxda idin aad si casri ah u casriyeysan u qalabeysan waxda sawirada ama radiology-ga waayaduna hadda qalab digital inteeda badan oo uu joogo radiologist uu joogo
marka dhammaan waxyihii looga baahnaa takhasusaadkeeda cusbitaalku uu leeyahay waa inay ka furan yihiin marka inay bulshadu ka faa'iidaysato oo maaragtay bulshadu adeega ay loogu talagalay inay ka hesho cusbitaalka oo aanay safar u gelin meel maaragtay ka durugsan ama waqti amaba dhaqaalo kaga bixi lahaa inay ka faa'iidaystaan oo ay maadaama cusbitaalka kuma soo xidhmaan ayma ku boorinaa bulshadeenu waa bulsho reer guuraaye systemka caafimaadkuna hore waxyaabaha ku cusub buu yahay inteeda badanna waxay isku dabiibi jirtay ama isku daweyn jirtay waxa ahayd uun dawo dhaqameedka iyo dhaktar dhaqameed bay ahayd marka hadda ayada lafteedii annagoo maaragtay bulshada aan wixii dhaqaana ee bulshada anfacu leh aan laga tegahayn laakiin marka hore waa inay dhakhtarka ay imaadaan laguna arko wixii kale marka faa'iido leh ee lagu kabi karo iyadoo caafimaadka iyo dhaqan ahaanba la isla ogyahay dawo dhaqameedba la isla ogyahay waa lagu kabi karaa laakiin qofku waa waxa weeyaan muhiim inuu helo xirfadle caafimaad shaqaalaha guud ahaan deegaanka iyo dalkaba gaar ahaan cusbitaalka waxaan u dirayaa waxa weeyaan kulli waa shaqaale caafimaadku waa shaqaale 24 saac heegan ku jira rays badanna saaran yahay inay aad waxa weeyaan ugu dhawr adeegaan bulshadooda adeegana ay laba jibaaraan khatarta corona waxa weeyaan ay barsidii ayaga laftigoodu ay kulli hadda waxaan rajaynayaa in talaal laga bilaabi doono dalka inay ka qayb qaataan oo maaragtay talaaladaas sidee u qaadan lahaayeen talabaadna in aanay ka daalin adeegay siinayaan hooyooyinka dhallaanka iyo bulshada u baahan in gargaar la siiyo meel kastay kaga sugan yihiin deegaanka saasaan baan usoo jeedin lahaa bulshada caafimaadka ka shaqeysa ama xirfadlayaasha caafimaadka nidaam baa jira nidaamka caafimaadku iskugu xidhan yahay oo waxaa jirta health center ama health post waxa lagu talagalay inuu health center ku xidhnaado oo wixii xilligaa asaga lagu yimaado uu soo diro health centerkuna uu soo diro hospital primary hospital hantuu jiro primary hospitalkuna general hospitalkuna uu sii diro referral hospital ama halkii kale tertiary ugu dhow marka nidaam baa jira iskugu xidhan yihiin hospitaalada ilaa iyo heer tuulo hal goobtii maaragtay xarun caafimaad ka furantoo kale tusaale ahaan annagu hospitaal ahaan waxaan subar ku sameynaa health centerada dhowdhow dadka markaan shaqaalaan u dirnaa waxaan u qaadnaa aqbiyada muhiimka training baa halka lagu soo siiyaa qofka bukaanka noocaha macno adeegay usoo qaban lahaayeen siday usoo diri lahaayeen intooda u badanna degmooyinka ama health centerada waaweyn hal ambalaas ugu yaraan way haystaan laakiin baahida ambalaasyada si guud kulli dhulkeena waa dhul aad u ballaaran waxa weeyaan meelo badan baa u baahan in maaragtay ayaga laftooda la gaarsiiyo laakiin ugu yaraan hal ambalaas way haystaan inta aan ka warhayo maaragtay gaar ahaan degmooyinka way haystaan laakiin hal ambalaas baahi ma kafayn karto marka la eego waa in ugu yaraan maaragtay in sidii kolba ay xaalad u tahay oon rajayn doona insha allah waana lagu guulaysan doonaa xanuunadu sida guud waxa weeyaan waa mid si guud wada saameeya u jira laakiin gaar ahaan marka laga hadlayo hooyada iyo dhallaanka ayagu way usii nugul yihiin hooyadana ayadu gaar ahaan xaalad waxay kusii jirtaa u baahan maaragtay in isha lagu hayo marka waxaa qasab ah hooyo kaste oo xaamilaa inay xarun caafimaad ay tagto kuna xidhnaato adeegeedana waa free adeeg kastoo loogu talagalay hadday shaybaar tahay hadday computer tahay hadday dawo tahay wax allaala wixii la xidhiidho hooyadaas ilaa intay ka umulayso hadday qaaditaan tahay hadday ambalaas meel lagaga keenay haddii lagu celinayo adeegeedu waa free marka waa in ay hooyadu waxa looga baahan yahay keliya ehelka maaragtay ama hooyada kolba ciddii awooda inay u sheegto ay la xidhiidho xarun caafimaad intaa wixii ka dambeeya ciddii mas-uuliyadda saaranta waa shaqaalaha caafimaadka iyaga la wareegaya marka waxaan oran karaa waa aad meelaha xoogga loo saaray ay ka mid tahay hooyada iyo dhallaanku gaar ahaanna hooyada uurka leh marka inay bulshada ku baraarugsanaato sidaas ayaa muhiim
waa tahay daawadayaal barnaamijkan aan ku eegaynay xaaladda isbitaalka maamulka magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Sharar waxaan ila socodsiinaysaa anigoo ayaan xasan xoogsadaa intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaa iyo amaana Allah.